بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نبينا كسترنا صلى الله عليه وسلم. ما أنت وحنا كهذا الدون هذا بس عشي لبعض لأورانا يسا رجع والله أقول هذه إن أي كرسدان أفر دمرك إمسا أيا أبنان إن أي كرسدان لأنه كتشوف أن دمرك واحد أبنان إسلامك كلا جوجو hal nin oo kale ugu horreyn waxaanu ka bilaabaynaa islaamku waxa uu ilaaliyay sharafta gabadha muslimka talabaadna waxa weeyaan rag iyo dumarku way kala duwan yihiin marka la yiraahdo muuqaal ahaan marka la yiraahdo fikir ahaan marka la yiraahdo awood ahaan way kala duwan yihiin oo ilaahay baa saaw abuuray dumarku iyo raguna marka cadaaladda iyo xuquuqda laga hadlayana waa isku mid waxaanu daba isku dayaynaa baaritaanadii cilmiga lagu sameeyay ayaanu ka soo qaadanaa 4 qodob oo odhan karna 4taas ayaa dumarka ma gabdhaha ay u noqon weyday inay guursadaan hal nin wax ka badan koobaad saan ognahay dadku way marmarsiyo badan yihiin hadday marmarsiyo helaanna waajibkii ay gudanayeen way ka baxsanayaan gabadhii haddii hal nin wax ka badan u tagaan ilma meeshii yimaado nin walba wuxuu ku andacoonaya inuu ilmihiisii ahayn ilmahaasina wuxuu ku korayaa ciyaalnimo ama caruurnimo aad u qadhaadh buu ku korayaa oo ilmaha dhaawac maskaxeed baa soo gaadhay waxaa la odhan karaa waxaa jira genetics baa la isticmaalaa DNA baa la eegayaa test qofka markaa waa la confirm garaynaya inuu isagu dhalay waa sax laakiin haddii xitaa la yidhaha adigaa dhalay oo lagu adkeeyo hadduunan jirin maxkamad ama shay xukumaya ninku dawo ka baxsanaya ma sii joogayo oo maraykankaba markuu ilmaha dhasho hooyadu soo dacweyso DNA-gii la eego dee waxaa la samaynay وها بيشا وقاتوا بر لغا سيني حافظة لكن مركي ماشو نظام أين لهين وجر سدي قلبك اللباد لبكو طبيعة إن دمر كالدوان وتغاي وطبيعة سيغا كوشر تويان وحيتا هدان ايغنوك ريقل بيت كيري وخلط ninku hal gabadh kale ma guursan karaan waxa la og yahay intooda u badan gabdho aan la garanayn bay si sir ah ula kulmaan way ula galmoodaan marka taana ma aha dabeecad ay raggu ay iska keeneen laakiin waa wax iyaga ku abuuran saddexaad waxa weeyaan ninku isaga waxa suuragal ah xaaladiisu jid ahaanad inay isbeddelaan hadduu burnaado waa dhugna waa suran kala laakiin waxaan u jeedaa xaaladiisa jirku waxa weeyaan dee isagu ilmo ma qaaday isagu ilmihii ma nuujinay isagu dhibaatada rafaadkee ma marayo hooyadaa maraysa hooyaduna isbeddelada kaa ku imanayaay dee waa wax u baahan qof garab istaaga oo la jooga markii hawl timaadana waan ognahay rag way baxsanayaan soo ma marka wasaas qodobka afraad ee ugu dambeeya gabadha hal nin wax ka badan guursata gabadhaas waxaa dhici kara ama ay u tagaani in xanuuno ay yimaadaan gabadha ay wax yeelaan bulshadii ay wax yeelaan marka islaamku waxa uu ilaalinayaa gabadhii in iyadu xanuunsato in ay bulshadii xanuunsato in ilmahan ay adduunyada keenayso ay ku rafaadayso uu berri ka maalin uu bulshada ka muuqdo in isbeddelka nolosheeda ku imanaya qof garab istaaga la helo oo ku qasban inuu la joogo intana waa wax cilmi baadhis lagu sameeyo weeyaan oo la arkay
inahaasaanu ku soo koobaynaa. waxaan jeclahay inaad intaan ka badan baadhaan. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.